in horta aqoontu wax ma xumaysto waxbay wanaajisaa dadkina iminka maanta bej baa markii hore ku jiraan ka hadlaynay ilmaha yar iskuulka waxaa la baraa inaa ilmaha lugihiisa la taaban waxaa la baraa ilmaha hadduu qofka weyne u yimaado uu taabto inuu waalidkiisa u sheego ama macalimiinta u sheego private life baa la baraa ilmaha yar iminka soomaaliya markaad joogtid aad ilmo yar tahay cid waxaan ku barayso ma laha dadkii waaweynaabaa kusoo hoos duumanaya dadkan bidafaylkii nimankoo keliya ma aho dumar bay xitaa leeyihiin bidafayla jira oo caruurta ka hela dadkan waa dad LGBT ka mida ma aho waa dad caruurta keliya ka hela maaha nimanka waaweyn ka helo amba dumarka waaweyn ka hela waa dad raadsanaya ilmo yar oo qaangaadhayn waa fahmaysaa horta taas weeyaan meesha imika ilmaha yar waxaa iskuulka marka lagu baro sexualityga qayb ka mid a ilmi yaraa aqoon ku filan buu leeyahay ilmaha yar wuu ogyahay waxaana dhowta wuu isilaalinayaa hadduu ilmaha yar LGBT ahayn LGBT kuma noqon doono in sexual schoolka lagu baro xitaa anu waxaaban qabaa inuu safe kusii ahaanay sexualkiisu fahmayo okay saaxiibkayga waa saas laakiin anugu saas mahi inuu ilmaha yar odhanayo waxaan ka doodayn oo kale confuse baa ilmo yar hayaa lagu dhahayaa so ilmaha yar hadduu confuse hayo inuu caawimo helo maxaa ka wanaagsan intuu meelaha wareeri lahaayo isqarin lahaayo dad aan expert waxaan ku ahayn gacantooda geli lahaa maanay ka fiicneen inuu ilmaha yar gacanta ku qabto qof expert ku ahaa waxaan yaqaanaa ta kale labaada ka rabo inaan walaal wax yar ku darso waxa weeyaan waalidka soomaalidu haddii ilmahaagu uu kugu kalsoon yahay uu ku og yahay inaad sabooraysid wax kasta ha noqoto situationkiisu uu kugu soo dhuuma lahaa aabba hooyo waxaasaan soo arkay waxaasaan soo maqlay sidaasaan dareemaya laakiin mushkilada jirta waxa weeyaan bulshadeenna waa ka baqanaysaa aabbaha iyo hooyada waa ka baqanaysaa in iskuulka lagaa saaro waa ka baqanaysaa in afrika lagaa tuuro oo dib lagu celiyo la dhaqan celis baa lagu celinaya lagugu xidho iskuul khaas ahaan wiilasha yareer la geeyo marka wadamadeena lagu celiyo waxa kusoo dhaca waa aragteen macalinkii iskuulka u dhigayaa kufsanaya ardaydii kale iskuulka la dhiganaysaa kufsanaysa waa lagu faraxmaynayaa meesha sharci ilaalinayaa ma jirto dowlad ilaalinaysaa ma jirto cid ka warhaysa ma jirto ma taas baa ka wanaagsan markaa ma safe garin dhaqan celin baa loo celiyay idhaahdeen muxuu kasoo faa'iiday markii soomaaliya la geeyey waa lagu soo kufsaday meeshii la geeye weliba sharci difaacayaana aanu jirin iminka wadankeena walaala markaad joogtid ilmaha haddii qof bidafayla haddii la ogaado inuu xitaa dareen yar caruurta u hayo waa laga tuuraa meesha noloshiisa inta ka dhiman kama shaqayn karo meel dambe oo caruura register baa la geliyaa system buu ku jiraa qofkaas inuuna meel dambe oo caruura ka shaqeyn so aqoontu waa sidaad sheegaysa deeman aqoontu waa taa ku badbaadan aqoontu mid waxayna yeelaysa ma aha anu fikradeeda waa taa waa in caruurta la baro inay dad kala duwan jiraan kala midab duwan kala sexual duwan in aqoontu waa waxa iskuulka loo dhigto so taa waa raacsanahay 100%.